aan ku bilownay tirada haweenka ee ka qaybgalaya siyaasadda ayaa ku soo badanaya Somaliland kadib markii dhawaantan Somaliland ay ansixisay sharci cusub oo haweenka u ogolaanaya in ay 18 kursi ka helaan aqalka baarlamaanka ee Somaliland. warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Barkhad Maxamuud Kaariye. dhawaan golaha wasiirada Somaliland waxa uu ansixiyay xeerarka doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada oo la isu geeyay. sidoo kale waxay ansixiyeen in qoonto loo sameeyo haweenka isla markaana waxay soo jeediyeen in xisbiyada siyaasaddu ay 18 kursi oo qoondeeyaan haweenka. haddaba sidee ay haweenka u sharaxan golaha wakiiladu ay u arkaan qoondada kuraasta ee haweenka? Nafisa Maxamuud Sharwac waa sharci yaqaan waxaana ka mid tahay dadka shaaciyay inay u taagan yihiin jagooyinka xildhibaannimada ee golaha wakiilada ee sanadka dambe. طبعا anigu aad baan ugu faraxsanahay inaan anigoo haweena aan maanta isku soo taago position-ka ah golaha wakiilada inaan u tartamo Jamhuuriyadda Somaliland oo aan ka mid noqdo xildhibaanada golaha wakiilada. horta markii hore bulshadeenu ragga ay door bidi jireen in ognahayo meel uu nin taagan yahay gabadh laguma dooran jirin. sababtuna waxay ahayd dumarka waxtarkooda lama fahmin. maanta waa ta koowaade maanta waxaa la fahmay dumarka waxtarkoodii waxqabadkoodii baa la arkay waxaa la arkay daacadnimadoodii yani sidaynu ognahayna bulshadeena Somaliland guud ahaan in noloshoodu cid laf dhabarta u amaanta ee ay ku dhisan tahay waa dumar. Nafisa waxay sheegtay in sababaha isu sharaxday ay qayb ka tahay aqoonta iyo khibradda ay u leedahay baahiyaha bulshada gaar ahaan haweenka iyo danyarta kuwaas oo ay tilmaantay inay matali karto kana turjumi karto baahidooda. waxaan weydiiyay sida ay iyadu u aragto kootada iyo sifaha ay rabto inay ku soo baxdo koota iyo tartan furan midkood. kootada anigu sidaan u arkaa Barkhado waxa weeyaan horta way fiicnaan lahayd haddii la helo waxa weeyaan nidaam ay saaxadda siyaasadda dumarku ku soo gali karaan isla markaana waxtarkooda lagu baran karo. inkastoo imka yadidiilo fiican muuqato laakiin haddana caqabadii awalba hor taagnayd waxaan aaminsanahay weli way hor taagantahay oo ah golaha baarlamaanka. anigu marka horeba waxaan ugu talagalay inaan si toos ah u tartamo marnaba kootadaas isku haleyn kama qabin. haddii la helo hadda way fiican tahay laakiin mar walba waxa iga go'an inaan si toos ah u tartamo oo rag iyo dumar cid kasta oo maanta u taagan doorashooyinka dalka ka dhacaya aan la tartamo. geesta kale dhaqaale waxa uu ka mid yahay waxyaabaha inta badan lagu sheegay in caqabadaha ka mid yihiin gaar ahaan doorashooyinka. wardamooga waxay ka mid tahay xarun arrimahaasi xalkeeda raadiyey sida ay VOA u sheegtay waxaana xustay inay qorsheynayaan imika in sanduuq dhaqaale oo lagu taageerayo haweenka la sameeyo. caqabadaha ka qabsadan waxaa number 1 ka dhaqaalaha ay heli lahaayeen ay isku sharixi lahaayeen dhaqaalahaas oo ay ku kala duwan rag iyo dumar markaan nahay rag hadii jaraal mulkiilo waa isaga hantiilo hadii aan lahayn iyagu isku uraan way isasiyaan annagu markaa waxaanu aragnay caqabadaasi si aan uga bixi lahayn inaan u ururino anagu contribution dhexdeeda iska ururino anu dumarkii hableey ku taageernay sharaxay rabina ka mid noqon. Barkhad Maxamuud Kaariye qubanaha VOA Hargeysa.